see gudoomiye baarlamaan isku sharxi kara gudoomiye baarlamaan duduble shaqo kuma leh duduble waa niman beesha hiraaba waa niman hawiya madaxweynaha leenahay xataa ra'iisul wasaare ma rabna anaga madaxweynaha leenahay adduunka ma aadan cadde markuu tanaasulayay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Ciise wuxuu u tanaasulayay hawiya inuu helo madaxweyne sidaasuna aadan cadde ku noqday dudublena hiraabu ka tirsan yahay annagu madaxweynahaasaan leenahay haddaan helnana khayr weeye sanadka soo socota oo u tartamayna haddaan weynana hadda nin walaalkeena noogu fadhiyo taladiisa wax ku leenahay go-aankiisa wax ku leenahay annagu dad urka hooyadoodna lagu soo celina manihin adduunkana naguma ciilin wax digil mirifle ay leeyihiin ma rabno baawur sheerinna waxaa loo kala bedeli karaa baarlamaan iyo dowlad shaqaynayo intii annaga dhaqan intaa u fariisano ku heshiino digil iyo mirifle ayaa loo bedeli karaa anoo madaxweyne heli kara maxaa ii wada aniga gudoomiye baarlamaan maanta waxaan rabaa shir jiraa'id inaan qabto shirka jiraa'id wuxuu ku saabsan yahay xildhibaanka beesha maxamed camal 007 xildhibaankaasi waxa weeye milyan noobajanta sasanta ama 1960 ayaa waxaa raadsaday nin la yiraahdo maxamed sida oo u dhashay beesha maxamed camal gaar ahaan cabdi maxamed ninkaas dhib badan uu soo maray markuu banaanka keenay rag baa ku qabsaday rag baa u dhintay allihaaya asagiina ma calfan marka kursigaas baa weligiis dhibkaas ka taagnaa jiray laakiin waayihii dambe waxa ku caan maali jiray nin la yiraahdo Bootaan Ciise Caalin oo muddo saarnaa Bootaan waxaa la tartamay nin la yiraahdo Cali Sheekh Yaasiin laba nin oo isku awood isku walanta maayna Bootaan Ciise Caalin ayaa loo codeeyay kuna guuleystay waxaa la yiri gariye maxaa tartaa markaas waxay tiri nin meel waayay ayaan magac u yeelaa Bootaan markuu dhintay kursiga habar walba iyo qof walba soo haweysatay maadaama tolka uu yahay wuxuuna wax maxamed camal ka dhaxeeyay yihiin haddana wax beelay iska leedahay ninkii markaa rag u tartamay maxamed cilmi afrax iyo Cabdullaahi Faarax oo nin aad u qiimo badan ah marka si hoos ah wada hadalna wuxuu yiraahdaa beesh kursigu waa kursi beel guud oo maxamed camal laakiin qaas waxa u leh niman la yiraahdo Cabdi Maxamed waxa rabaa kursiga inuu turtamo takarab la siiyo walaalkuna hadda waxa ay isweydiistaan way isku leeyihiin waa loo codeeyay waa la si sharaf leh 2 sano ayuu ku soo dhameeyay Cabdullaahi wax badan oo qabtay wax badan oo sharaf leh oo wanaag leh ayuu qabtay xag dawladeed ha noqoto xag dib u heshiisiintii maamul goboleedka galmudug ha noqoto hadda reerkuna waxay xaq u leeyihiin u raadinay wax xaq daraa u raadimin annaguna waa kula shaqeynay kula kontrolnay maalintii dambe wuxuu ahaa xildhibaankii federaal ah oo Soomaaliyeed ee gaarigiisa wareejiya xilkii uu hayay wareejiyay kadibna iskaga tagay wuxuuna yiri suldaanow anoo hadda reer hebel madina laf kamida lafaha beesha maxamed camal ayaan baashan ka wadi waayo inta beeshaas ay ku jirtana wax horumar laga gaari maayo sideedana inta xildhibaan maaragtay qabiil soo dooranayna corruption iyo iska daba wareeg iyo reer hebel marka aniga nin wax bartaan ahay baashan saan moodayo maahan halkaas ay iga dhanta ma xuma waxa weeye nin la yiraahdo Faarax Cabdi Diini oo hadda sheeganaya inuu xildhibaan yahay xildhibaan mana u aqoonsanin ergadii beesha maxamed camalna weli waxay joogtaa meesha la yiraahdo dhuusamareeb weyn oo joogaysa maxamed camalna waa isii qaan jilib iyo laf hooyo aaba isku dhalay wallahi wax maxamed camal uu san bixin oo ogeyn oo aniga ogeyna nin geey kara qorqora sheegaysahay hadii ruush iyo amerikaan isku yimaadaan nin geey kara male dadku waxna waa kala leeyihiin waxna waa isla madaxweyne qorqor waa madaxweynaha dawladda federaal maamul goboleedka galmudug xaqna wuxuu leeyahay maamulkiisa wixiisa waan ogolnahay باور شيرنا لو قبل لك حدبان كباش محمد عمل نكان أو حق لي سجوي رمت إلا عديا وناس إلهي بانو جعل محمد حسن حرسي فافل واسكع عسلي دلب من دوين وكورنيلا واسكع عسلي محمد علم أفرح واسكع عسلي وحوي وحو مركز دم ماشي إلا مركز نقطة فارح لوبني أيوم الحيس وسمي أنا هم الحيس إنه ما سمي محمد عمل أنا اللي هذا وحين وعدهين كرسي عن كرسي أورجينال أوروايا وحواي جنيف وكقرية بيل بوكقرية غير بوكقرية كرسي كان وكرسي كونتون يسدس سنة جلا سماه فهم أنا حتى ويجوا كونتون يسدس سنة جلا جنيف وكقرية باش محمد عمل وكقرية باش عبد محمد وكرسي قرية آذن عبد وكرسي قرية آذن عبد نسدد لفظ على له عد بادي كرت مجرت عد بادي كرتنا مله تذكرنا أنا ولا علينا هذا وحشاجني تقدر تاني قيمة نقوله وياه سماه فهم فارح عبد الدينية إلا وصوف هرفر يستباش عبد محمد وقعد صد والله عد كفر يسكرت إني سجل هم تنكوش شيء يعني وحوي ولين ولا الكيا أو أنا أجعلها أيام برنامج خاص كلا شقينية أنا هذا الرئيس السودان كده أنا هاي من مدة أوجا ولا ردت كلا دين فاسل يوسف دين إن شرف بدن أو قيمة لا تاي أما تشاينا كمغنو أما كمغنو ماشي اللي هذا إن كينيا هذا واحد وشغل باكله فارح عبد الدين إنك وضح وما أنت محمد عمل اسكت دلية أديك كرسي كان كرسي دبادة دي قوته
xaaji qaalo aabiisa ku dhinto baawur la hoos galay iyo saddex nin ninkii markaas qaatay oo ku guuleystay oo ah sida ayaa lagu dilay maxamed camal intuu qof ku dilo waa la ogyahay walaalow kursigan ka har war Faysal Yusuf Diini iyo reer Diini Hilowlow kursigan afrax maxamed iyo alamagan maxamed ma ku sii karaan cabdi maxamed baa iskale wax la ogyahay waaye Jineef uu ku qoran yahay walaalnimo haddaa wax nooga soo codsataan maxamed camal wuxuu israbo waa sii karaa laakiin anoo maxamed camala oo cabdi maxamed adoo afrax maxamed anay ma ii ka xoogi karo qorqorna taas waa u sheegay anay madaxweynihiisa hawshiisa waa u ogolaa laakiin wallaahi oo billaahi wax aniga aan ogoleen ama cabdi maxamed ogoleen nin qaadi kara ma leh waxaa soo haray Fahad Yaasiin wata been way Fahad Yaasiin ma wata Fahad Yaasiin nin sharaf leh oo diin leh oo aqoon leh waaye mana dhexgalo wax qabil qof waa raacsan saaxiib waa la noqon karaa anagu beer gabar waxaan dhashay maxamed camal oo dhan oo reero xasan dad qiimo leh sharaf leh agtana qiimo leh on qiimeeyo wax walba hayna waxaan ka doonana ka weyn mana dhexgalay wax maxamed camal reer diiniya ku soortay madaxweyne farmaajo madaxweyne Soomaaliya ma dhexgalay faadmo diiniyaan dhashay ma dhexgal dadku waa siqaan anaga Soomaali waa wax yar way qoys way Soomaali bini isku naqa bootadan iyo gabgabtan waxa wada madaxweyne qorqor la wada baantaasna way dhamaanaysaa asagoo jooga inaan fariistan ku tusaa anaa fariisanay Soomaali faan taas halkaas uga baxay kursigaas ha isku ceebeenin waxaan Soomaaliya bulshada Soomaaliyeed qaasatan beesha hawiye iyo beesha Digli Mirifle aan ka raali gelinaya waalida oo ninka war asagayaan ba xalaal ahayn oo xalaal ku imaan oo la isixin oo la dhaarin oo tal wax siin oo tal wax see gudoomiye baarlamaan isku sharxi kara gudoomiye baarlamaan duduble shaqo kuma leh duduble waa niman beesha hiraaba waa niman hawiya madaxweynaha leenahay xataa ra'iisul wasaare ma rabnaa anaga madaxweynaha leenahay adduunka ma aadan cadde markuu tanaasulay ninka la yiraahdo Cabdullaahi Ciise wuxuu u tanaasulay hawiye inuu helo madaxweyne sidaasuna aadan cadde ku noqday dudublena hiraabu ka tirsan yahay annagu madaxweynahaasaan leenahay haddaan helnana khayr weeye sanadka soo socota oo u tartamayna haddaan weynana hadda nin walaalkeena noogu fadhiyo taladiisa wax ku leenahay go'aankiisa wax ku leenahay annagu dad urka hooyadoodna lagu soo celina manin adduunkana naguma ciilin wax digil mirifle ay leeyihiin ma rabno baawur sheerina waxaa loo kala bedeli karaa baarlamaan iyo dowlad shaqaynayo intii annaga dhaqan intaa u fariisano ku heshiino digil iyo mirifle ayaa loo bedeli karaa anoo madaxweyne heli kara maxaa ii wada aniga gudoomiye baarlamaan anoo walaalkay digil iyo mirifle waxaan raba ka heli karo maxaa been iyo bururuq iyo baraha bulshada ii keenay walaalayaal ninkaas nin qaa'ima waaye nin dudublo soo dhacay waaye nin sharafta duduble shaqo kule ma ahan magac dudublo ka yahay qabiil maxamed camal ka yahay beel wuxuu ka yahay calas wax shaqaa nagu male waxaan u dhiibana male wuxuuna matala male lama dhaarin wuxuu yiri ninkii hebelow war ninka ugaaska ka dhiganaysa waa midkaas fiiri dhibka uu hadda keenay asagoo wali la asxin oo ergadii soo dooratay 110 waa 4 nin ma intii kale meesha ay joogto xisaabtana jira adduunka xisaabtana jira xisaab iyo qayb dhabiishana jira wala dhabiishama cid baadi karta male dadka annaga u soo tali jiray wallahi taakiina qaadi karin reerkiina qaadi karin istanbul ahanaysa markaas maanta wuxuu leeyahay inuu ku banaysto rabaa gudoomiyaha baarlamaanka ahay oo sharaxana war cid ku sharaxi karto iyo gudoomiye baarlamaan wallahi xildhibaan xataa inaad istaagin haddii calas annaga gogol intay noo dhigaanayna baryaan walaalayaal wixii dhacay waa dhaceen tolkana idanka u tali jiray reer cabdi maxamed intaas haysateen waligeena anaga idima doodin walaalayaal si anaga calas waa siinayna walaaleen waxaan siinayna afrax maxamed waa ugu duceynayna ama wax ku qabtay mise ku qaban laakiin midda uu wado iyo cidda aamusanba jawaabteedaan bixinayna anaga arrintaana Faysal Yusuf Diini yaa u haysta aniga shirkadda Hormuud ragga madaxda ka ma haysto aniga shirleyda ma haysto shaqaaleyda ma haysto Cabdikariin Maxamed Kaariye si hoose arrintan u dhamay karta oo hadli karta waxba kama walaadii aab ku leedahay waxa weeye ninka la yiraahdo Xaaji Qalu agoonnima ku soo martay kursiga aabaha intuu xanaqa maskaxda jiriso baawur la hoosgalo waa adiga hadda baawur ha la hoosgalo adiga dhib yuusan ku keenin kursigan bari ka noqon ninkan ka qabta haddaad wax la rabtaan wadaan annagu walaalana waxa isku diidimayni si sharaf leh wax nooga doono war anoo maxamed camala oo cabdi maxamed xuseen cabdi wallahi qorqor inuu ii ka dhici karo adduunkan ku wada tagayna maahan qorqor koobsha inuusan ku dhici karin qorqor waa madaxweyne talo nagu leeyahay inuu waxna bari haddaan anaga isqabo weyn inuu na bariyo leeyahay aniga inaa qorqor ergada halkaas joogtaa nin doortay oo maxamed camala ma jiro anugu mariixan iyo gaal jacli iyo jiido ii dooramayso qof waa dad walaala nin walba wuxuu leeyahay ergadii maxamed camal haddii hal nin oo doortay laga helo faarax cabdi diini waa aniga adduunkana sharciyaa ka jira heshiisaa ka jira guddi doorashaa jira guddi khilaafadaa jira waxaasoo dhan waxaan u ilaalinaynaa annagu dad magac leh oo sharaf leh oo ilaahay karaama siiye oo Soomaaliya hoggaan u ahaana inaan hoos u wada hadlo waxaana igu kalifa anoo suldaankiina inaan media idinka helo waxa weeye lafgaab hadday waxasho way dhuumanay
calas banaanka iskeen haddaa laan dheerata banaanka iskeen Soomaali ha ku barato naga codso waa ku siinayna haddaa diido walaa adoo lafgaaban kaa qaada wallahi aanin siina aniga runtan kuu sheega nin adoonsan karay nin badan shaatiga iyo raganimada aad ku hesho iyo magaca shirkadda Hormuud anaa kula haddaan kala baxo wallahi wariiriga ku cunaya runtan kuu sheega anaga waxa weeye walaalayaalow Soomaaliya raali ahaada ninkaas anaga nama matalo xildhibaan la dhaariyo maahan asaga xalaal ku imaan asaga hotel tolkii la isku haystaa ergadiya meeshii jira gudoomiye baarlaan duduble shaqo ku male baawur sheerino u male anagu hawiyana la yiraahdo hiraabana la yiraahdo madaxweyne Soomaaliya u socona hadii ilaahay noo sahlana alxamdulillah rabbil caalamiin hadaa ilaahay noo sahlina hadaa waxa waaye wax walba kulli shay yaktub waxa ilaahay qorin ma la helano maxfuudka ku taala nin walba madaxweyne la'ana hadaa beesha duduble waxay ka rabto way ka heshaa ama abgaal ha noqdo ama maartay habar gidir ha noqdo dadku waa wada dhashay bahalka xataa madaxweynaha hiraaba iska leh anagu dadka runta in loo isku sheegal rabaa ra'iisul wasaarena waxa iska leh nimanka la yiraahdo daarood Soomaaliya ayaga ku heshiis ama isku dilaan sanadkan duduble madaxweyne uma socdo laakiin sanadka soo socdo ana u socdo been lama rabo nin walbana waxa uu leeyahay qaadana sideedana waxa waa beena la isku sheegay ra'iisul wasaaruhu leeyahay in madaxweynuhu leeyahay Somaliland waa dal walaala oo jaarnay wax naga dhaxeeyo oo walaalnimo aan male ergadana dhibtana ama diray ka mid noqonaya ama banaanka naga marayaan warkayga intaas ku soo gabagabeynaa Soomaali meel walba joogto Faarax Cabdidiin waxa uu qaba lama qabno raali kama nihin cidii dambe oo aniga ay daba hadashana Faarax Cabdidiin waa tug waay waxa waa la qabana anagu hadaan nahay beesha Maxamuud Hiraab hawiyaan ka mid nahay madaxweyne Soomaaliya waa u tartami karnaa sanadkan u tartami mayno beel in la sheego lama rabo cid ilaahay ku soo guuleeyna waa lagu la shaqeynaa ama hawiya noqoto ama daalad ha noqoto waa anaga xildhibaanadeena haysana saraakiishana haysana baawr sheerinkeena haysana soo madaxweyne soo cid noo diiday mala anaga u tartami duduble hadaa wax cusub 2026 gudoomiye baarlamaan wallahi loo tartameen shaqana ku lahay baarlamaan xataa haduu yimaado ka fariisto oo hawiyo oo dhan isku raaco waxaan rabnaa gudoomiyaha baarlamaanka u tartami meen anaga madaxweynaha Soomaaliya wax aad adoo madax majalayska ma dhigo faaraxna ilmo waay social media kuma banaysan karo kursiga maxamed camal cabdi maxamed aadan cabdi warkayga intaas oo ku soo gabagabeeyna wixii sharci Allah naga xijaabo wixii qeyr Allah na waafajiyo Soomaalina madaxweyne caadil oo diinta dalka ku xukuma Allah noo sahlo ama mid ka jooga ha noqdo ama mid kale ha noqdo kale ilaahay baa yaqaan kaasana sugeynaa laakiin arintii Faarax Cabdi diini xildhibaankiisa wali aan la sixin xalaal uusan ahayn maxamed camal 110 ay ka joogtay nin walba gooska saas dhiriq u siinayo Soomaaliya ku ma banaysanayo dulmi ilaahay ma nabca ma jecla naftiisu ka xarimay anagana waa naga xarimay waxa weeye baarlamaanka digil iyo miriflaas kale gudoomiyaha sare golaha sare waa u tartami karnaa gudoomiye ku xigeenkiisa dadku waxna waa kala leeyahay waxna waa wada leeyahay anagu sidaas uga baxnay hadda suldaankii hadlay Soomaaliya raali ahaada awiyo raali ahaada baawur sheerinkaas naga dhaxeeya ninkii helo hawiya iskale hadii daaro helana daaroda iskale digli milifnan raali ahaadaan wixii maarta baarlamaan idinka iskale waxa dambe hadii laga heshiinayo markii dawlad la dhiso oo baarlamaan la dhiso oo la dhaariyo oo xalaal la noqdo oo dhibkan laga baxo ayaa laga heshiinaya insha Allah taala hadii ilaahay ugu simana baarlamaanka waa looga doodi doonaa in hawiye iyo daarood wax loo kala leexiyo oo qolana ra'iisul wasaare qaadato qolana madaxweyne qaadato sidaasina ahayd cidii kartana ma jirto sideeda dheer shirka ma bislaado hadoo bislaadaan lagu ma dhirko madaxweyne hawiye daarood shirka ku yihiin Soomaali ma qaadayo Soomaali walba dood iyo eray anaga kama kacan waxa rabaa hal qabiil madaxweyne hal qabiil ra'iisul wasaare wadanku waa daga waxana waaye aniga loodka iga dambeeya iyo caruurta soo koreysay kan caloosha ku jiro ayaan rabnaa inaan jadwal fiican iyo magac wanaagsan iyo sharaf uga baxo meesha hawiye ee daarood in laga gudbo qof iyo codkeeda tagto Soomaali way is baratay dagaal waa la isku bartay dhibaato waa la isku bartay halkaas aan uga soo harayaa